qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka Somaliland ayaa waxa si habsamay oo uga socda deegaanka Digaale ee degmada Maxamed Mooge ee koonfurta magaalada Hargeysa halkaasi oo muddadii la bilaabay qaadashada kaarka codeynta doorashooyinka Somaliland ay dadku si habsami ah uga qaadanayaan kaararkaasi deegaanka Digaale waxa aanu kula kulanay mid kamida ururada dhalinyarada ee ka shaqeeya arrimaha bulshada waa ururka Danjire kuwaasi oo si mutadawacnimo ah uga shaqeynayay wacyigelinta iyo sidii ay bulshadu u heli lahayd kaararkii ay xaq iyo xuquuqda u lahaayeen inay ku codeeyaan sidoo kale waxa aan halkaasi kula kulanay mas'uuliyiinta goobta komishanka doorashooyinka ee xaafadda Digaale iyo sidoo kale gudida maamulka ee xaafaddaasi Digaale kuwaasi oo guud ahaanba ka waramay sida bulshadu ay uga qaadanayaan kaararkooda codeynta iyo farsamo ahaan sida ay hawshu u socoto magacaygu waxa weeye Aftaax Maxamuud Dagaal waxaan ku hadlayaa afka ururka Danjire Development Organization oo urur local organization oo ka shaqeynaya arrimaha wacyigelinta isla markaana dadweynaha ku dhaqan caasimadda iyo guud ahaanba gobolka Maroodijeex waxaanu saddexdii cisho maalinta saddexaad nootay waxaan wadnay wacyigelintii dhammaan degmooyinka waan soo marnay run ahaantii shaqadu si aad iyo aad u qurux badan bay u socotaa maanta waxaan joognaa oo saaka aan duulimaad ku soo qaadnay inaan wacyigelino xaafadan baaxadda weyn leh Digaale xaafadaas oo saaka aan ugu nimid safar anagoo kolayada ka socono ururka Danjire waxaan bilownay 8 barkii aroornimaan xaggan soo gaadhnay run ahaantii shaqadu si aad iyo aad u qurux badan bay xaafadan uga socotaa waa kaarikoona magaalada waana degmada Maxamed Mooge waxaan faraynaa dhammaan shacbiga Somaliland guud ahaanba gaar ahaan gobolka Maroodijeex oo imka aan joogno caasimadii Hargeysa waxaan doonaynaa in degmo walba ay u soo baxaan dadweynuhu ay kaarka qaataan oo ay ku baraarugaan muwaadintan waxay ka qayb qaadanaysaa ay ku sahlaysaa inaad si xor iyo xalaal ah aad u dhiibataan codkiina isla markaana ay u dhacdo doorashadeena one man one vote hawshan waa hawsh komishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo shaqeeyeen waxa kaliya aan la kulanay ee carqadada ugu weyneed waxa weeyaan goobaha la kala jabiyay oo dadka qaar meelo fogfog ka yimaadeen sidaas daraadeed ay meeshii markay yimaadeen kaarkoodii ka waayaan oo goob kale loo dirayo problemka ugu weyn ee soo noqnoqonayay labadii cisho u dambeysay aan soo report gareynay wuxuu ahaa problemkaas intaana insha Allah komishanka ayaan ka suganaa in insha Allah ay wax weyn ka qaban doonaan magacaygu waa Nada Cabdiqani Cabdalle waxaan joognaa waa goobtii Digaale 5.501 goobtii 501 ما شاء الله كمشك سفي عم بالله شقينا يا دقمدو أدب في عنتاي تذكرون سفي عم بكاركو ذو قادنا يان أدنى ما يوح قلدا دور دعيمة شيران تشست واحد شيرا إن أي قابتي لبلو كل شيء تذكرون أي إنتا إن يركع بنايان لكن لا فضلنا دون إن شاء الله وحنا علي عبد الحسين Digaale تذكر أدب مركو هره وراقة وقعتي قابتن Digaale كبعدي dadkii kaarkay hadana soo doonteen way waayeen kaarkoodii waxa la yiri Maxamed Mooge qabta waa meegaagtii ka yimaadeen ubaale ka yimaadeen waxay ka yimaadeen xarig way waayeen marka baaq waxaan u jeedinayaa komishanka inay dadkan guraan oo halkii kaarkoodii yaaleen lageeyadii saan codkoodu u lumay horta xaafadan Digaale dad aad 1500 qof ayaa iska diiwaan galiyay dadkaas oo ka kala yimid ilaa ubaale ilaa meegaagta ilaa xarig ka kala yimid una badan inta badan dad waaweyn iminka dadka warqadahooda la waayay waxay u badiyeen dad waaweyn oo la yiri meel kale oo doonta aan dib bay ugu tahay anagu ma celinayna gaar ahaan ururka Danjire oo dadka caawiyay ilaa isaa kana guriyay ururkaas uma aragnay marka waxaan u sheegaynaa komishanka in arrinka wax ka qabtaan hadduu Allah idmo waa Mawlid Maxamed Saciid warbaahinta qaranka Somaliland